kumanaan ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Baran ee gobolka Sanaag ayaa maanta waxay isugu soo baxeen fagaarayaasha waaweyn ee magaalada Baran ee caasimadda gobolka Sanaag. dadkan ayaa waxay ka mudaharaadayeen Soomaaliland waxayna sheegeen in maamulka Soomaaliland si weyn uga soo horjeedaan. mudaharaadayaasha ayaa waxay ahaayeen kuwa ku dhawaaqaya ereyo la duka Soomaaliland waxayna sheegeen in Soomaaliland ay maalmaha dambe tan nabadgelyo xumo ka waday gobolada qaar ka soo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxayna sheegeen inay u dulqaadan doonin. mudaharaadakan ayaa waxa ku soo beegmaya kadib marmahan dambe wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland uu booqasho kala bixinay qaar ka mid ah gobolka Sanaag bari waxayna sheegeen in aan loo baahnay arrimaha noocaas oo kale iyagoo sheegay in gobolka Sanaag uu ka mid yahay Puntland. guud ahaan shacabka magaalada ayaa maanta waxay isugu soo baxeen fagaarayaasha waaweyn ee magaalada Baran ee caasimadda gobolka Sanaag waxayna sheegeen in mar walba ay tahay lama huraan jiritaanka iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed iyagoo sheegay in aan loo dulqaadan doonin cid walba oo wax u dhimaysa midnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. shacabka gobolka Sanaag ayaa waxay sheegeen in horseed u noqon doono kala go'go iyo tafaariiq ummadda Soomaaliyeed waxayna sheegeen inay yihiin shacab looga bartay midnimada iyo jiritaanka qaranka Soomaaliya iyagoo sheegay maanta inayna bilaami doonin waxyaabo noocaas oo kale ah. waxayna sheegeen in maamulka Soomaaliland oo maalmaha dambe dhibaateeyo ka waday gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo waliba degmada Buuhoodle waxayna sheegeen in loo baahan yahay waqtigan in dhibaatooyinka laga qaado goboladaasi iyagoo sheegay in shacabku ciduu doona raaci karo. ugu dambeyntii ayaa shacabku waxay isugu soo baxeen fagaarayaashii waaweynaa waxayna halkaa ku soo bandhigeen mudaharaadyo waaweyn. ugu dambeyntiina waxaa halkaa kala hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda Puntland ugu horeeyo duqa degmada Baran Cabdirasaaq Axmed Ciise gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Siciid Nuur Dabayl wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha ee dawladda Puntland. ugu dambeyntii ayaa dadku waxay isugu soo baxeen fagaaraha ka horeeya wasaaradda maaliyadda ee dawladda Puntland waxaan halkaa kula hadlay qaar ka mid ah madaxda. intaas kadib ayaa shir jaraad oo qabteen wasiirka iyo waliba qaar ka mid ah madaxda dawladda oo ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Sanaag duqa magaalada Baran iyo waliba taliyaha ciidanka halkaa waxa ku qabtay shir jaraad oo uga hadlayay nabadgelyo guud ee gobolka Sanaag. hadalladooda ayaa waxaa ka mid ahaa Soomaaliya iyo in la kala qoqobo Soomaaliya waxaan aad uga mahadcelinayaa dadweynaha halka isku soo baxay siday u muujiyeen shucuurtooda iyaga oo ka dhiidhiyaya xasuuqii loo geystay kuwa ka mid ah gobolada Cayn iyo Sanaag iyo Sool oo ay ku xasuuqday dawladda Soomaaliland dadkii deganaa halkaas. waxaan ugu baaqaynaa inay faraha kala baxaan dadka shacabka ah oo lagu qasbayo waxayna dooneen. dadku Soomaaliya ma kala go'i karaan waana isku mid weeye mowqifkeenuna intaas ayuu ku aadan yahay. banaanbaxan ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyay ee gobolada qaarkood marayeen wafdi uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland waxayna shacabka degmada Baran ee gobolka Sanaag sheegeen inay si aad uga soo horjeedaan cid walba oo wax u dhimaysa midnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. maxamed axmed salaad cagmadhiga Somalisat Baran.